بسم الله الرحمن الرحيم أخيرا ku xiran kanaalkayga Badee Technology Channel kusoo dhawaada cashar kale cusub oo kaga hadlayno sida loo sameeyo business card qurux badan sida loo design gareeyo adoo isticmaalaya Photoshop ayaa aynu maanta bilaabaynaa si fiican loola socdo. Okay, inta kadib waxaan dhahaynaa create new Photoshop ka soo kicinaysaa dabeetana waxaad dhahaysaa create new daaqad cusub baan soo kicinaynaa waraaq cusub baan samaysanaa waxaad tagaysaa print dabeetana size ka halkaas aan ku apply gareynaynaa size ka aan isticmaali doono halkaas aan ka dhiganaa intayna size ka bilaabin marka ugu horeysa pixel baad ka dhiganaysaa halka dabeetana size ka business card ka ogow shay kasto la qabanayaa bad size gaar u leeyahay waqti size gaar oo lagu sameeyo ayuu leeyahay hadii ID card design gareynayso wuxuu yeelanayaa size gaar ah oo size gaar la isticmaalayaa hadii logo la sameynayo logadu qaab gaar ay leedahay hadaad board sameynayso boardku logo qaab gaar u leeyahay hadii poster aad sameynayso everything whatever waxay doonto ba ahaatee design gaar ay yeelanayaan so maanta casharka inagu sameynayna waa aniga idin sheegay oo idin yiri waa business card sida darteed design kan wiriska aynu isticmaalno ama size kan isticmaalno wiriskiisu waxa weeye waa 1050 1050 weeye waa 1050 halka height kuna uu yahay 600 oo pixel 600 oo pixel uu yahay 600 oo pixel yahay oo 600 oo pixel yahay height kuna waa 600 width-kuna waa 1050 halka waad ka bedelaysaa magaca oo waxaad u bixisanaysaa magac waad u qoraysaa waxaad leedahay business card pro design ayaynu sameynaa halkaana business pixel baad ka dhiganaysaa orientation waxaad ka dhiganaysaa landscape oo waad shiifanaysaa anta borders baad ku daraysaa halka tigtaad saaray RGB color-ka waxaad u deysanaysaa inta badan idinka arko waxaan la yiraahdo maxay akhyaaray waxaan la yiraahdo halka tigta saaraysan si uu laba beebaris ama laba letter inoogu soo saaro resolution ka waxaad ka dhiganaysaa 300 color mode kuna wuxuu ku noqonayaa CMYK maadaama inta badan la daabaco oo waa la daabacaa ma ogtahay color mode ka waxaad ka dhiganaysaa CMYK baa inta badan laga dhigtaa waxaadhow marka daabacanayso CMYK baad ka dhiganaysaa color mode kaaga laakiin imika waxaanu isticmaali doonaa RGB color baynu isticmaali doonaa oo wixii social media ahaan baynu isticmaalanaa oo imika daabici mayno moogta sidaa darteed RGB color baad u deysanaysaa color mode kaaga background content-ga weight buu ku noqonayaa halkaana 8 bit resolution kaaga 300 halkaana magaca aad ku qoranaysaa inta kadib waynu abuuraynaa inta kadib markaynu abuurno daaqadiisna bay nagu soo bixi doontaa halkaas ku dhufanaynaa si laba inoogu samayso hareerta dhinacaas ka dhufanaysaa laba inoo soo baxday oo RGB color markii waynaga ku dhufanay dabeetana waan yareynaynaa size-keeda way iska yareynaynaa saad arki kartaan size-kii ahaan waa ka labadaas aynu sameynay iminka size-kani waa size-kii saxda ahaa ee lagu design gareynayay business card ee standard ahaa okay inta kadib waa bilaabi doonaa si fiican loola socdo kan aynu ku horeyn doonaa waxa soo marka qoraysa rectangle tool baynu isticmaali doonaa halkaas soo kicinay dabadeetana halkaas saa u jeexaysaa halkaas saa u jeexay halka marka saa u jeexdo sidan baad leedahay dabeetana waa baad leedahay halkaas ku dhufanaysaa dabeetana rotation baad ku sameynaysaa waa qaadaysaa halkan aad dhigaysaa
dabeetana hoos baan usoo jiiday ilaa intaas oo dhan baynu u deynaynaa insha allah. kana waa yaro wadaynaa good. okay baynu leenahay. okay markaynu nidhaahno idinkaynu samayn doonaa akhyaaray waa kane designkaynu apply garaynayno ama designka business cardka aan samayn doono waa noocan kan baynu design garayn doonaa oo labadan qaybood ka kooban. qaybtani waa qaybtii outside ee dibadda. idinka arkay oo business cardku dee ama cardsku laba qaybood ka kooban yihiin, qayb gudaha iyo qayb dibadda. sidaa darteed qaybtii dibadda iyo qaybtii gudaha outside and inside weeyi. sidaa darteed kaynu design garayn doonaa waa kan. sidaa darteed si fiican loola socdo. intaa marka aynu samayno waxa aynu samayn doonaa waxaan soo qaadi doonaa haddana rectangle tool kale. halkaasaan saa ugu sawiri doonaa. dabeetana waxaan leenahay control iyo t baan leenahay. halkaasaan ku dhufananaa. qaabkaasoo kale u weyneynaynaa. qaabka markaynu u weyneyno tanna waa yaraynaynaa. saasaan leenahay. dabeetana qaabka markaan dhahno waa soo qaadaynaa. ugu horreyn horta kalarka ka yar bedelaynaa si aan wixii u arki karno. hadhow waynu kalaraanta ku apply garayn doonaaye dushan saa uga saari doonaa. hadda bal si fiican ugu fiirsada akhyaaray. kaynu design garayn doonaa maxaan idinku yidhi waa kaasaynu apply garayn doonaa. dabadeetana intaa markaan sameeyo idinka arka si fiican baynu ugu apply garaynay. dabadeetana intaa markaan samayno maxaa inoo xiga inaynu labadoodaba isla qabanno. labadoodaba waynu design garayn doonaa oo hal mar shape baynu iskaga dhigi doonaa. shift baan labadoodaba qabanayaa. dabeetana waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa maxay merge shapes. merge shapes markaa ka dhigay automatically colorkii saxda ahaa ayuu noo qaatay. automatically colorkii saxda ah ee markaan hore aan ku design garaynaynay ayuu qaatay oo idinka arkaya. intaa marka aan sameeyo aan halkaa si fiican halkaa intaa kaga baxno already halkaa waynu samaynayba. waxaan u gudbi doonaa maxay qaybta kale ee soo jeeda ee dusha ee iyaduna shape toolka kale ee waxa la yiraahdaa toolkaas ellipse tool weeyi. saa loo qaabeeyey. sidaa darteed kaasina iminkaan samayn doonaa. waayo waxaan soo qaadanaa halkan ay kasoo doorananaa ellipse tool. halkan kasoo dooran doonaa shift baan isla qaban doonaa si aanu qalqaloociyo waxa inooga ilaaliyo. intaasaad u daynaysaa. intaa markaan u dayno waxaan leenahay control iyo t. control iyo t markaan dhaho waa baan leeyahay. qaabkan baan markaa u jeexayaa. kana qaabkan baan leeyahay. in yar baan saas oo leeyahay. intaa markaan dhaho baan waxaan leeyahay okay waa soo qaadayaa. halkaasaan dhigayaa khiyaaray. hadda bal si fiican ula socda waa idinka arkaya. halkaasaan dhigayaa. already wuxuu waa very simple weeyi. haddaad design garayso waa idinka arkaya qaabkan u design garaynayna waa qaabka. sidaa darteed waan soo qaadayaa. halkaasaan dhigayaa. halkaa haddii aan dhigo haddaan doono yar baan sizekeeda weyneynayaa. intaasaan u deynaynaa. dabadeetana sizekiisi saxda ahaa baan ku fadhiisin doonaa. sizekiisi saxda baan ku fadhiisin doonaa. halkan aan tegayaa. size saxda ee aan ka dhigay kaasuu ahaa. kaasaad ka dhiganaysaa adiguna hadhow oo aad ku apply garaynaysaa. okay intaa markaad samayso aynu qaabka ka dhigno waxaan ku dari doonaa in yaroo la yidhaahdo inner shadow waan ku dari doonaa. halkaasaan taabananaa. dabeetana daaqadan baa inoo soo kici doonta. already daaqadaana oo sideedu inoogu qaaday. waxaad leedahay okay sideeda ayuu inoogu qaaday. okay baynu leenahay. intaa marka aan sameeyo kanna waan u iman doonaa. isagana inner shadowgaasoo kale ku darayaa. inner shadowgaas wuxuu ka qayb qaadanaya wixii maxay inuu qurux bato ayuu ka qayb qaadanayaa. okay baan leeyahay. intaasaan u daynaya isagana. intaa markaan sameeyo waxaa inoo hadhay qaybtan dhexe
aynu styleka farta ku qornay ayaa inoo haray laakiin waxaan soo hubinaynaa cabirka nooca uu ku fadhiyey baynu eegi doonaa ma yahay cabirkii saxda ahaa sidaa darteed intaa markaan samayno already cabirkii saxda uu inoo yahay waxaan soo qaadi doonaa polygon tool baan soo qaadayaa oo kana halkaas insaa ugu jeexayaa anoo shift isla haya intaasaan u daynayaa okay waan soo qaadayaa halkan dhaxaan keenayaa waan yareynayaa in yar intaasaan u daynayaa weliba waan yareynayaa in yar inahaasaan ugu dayni doonaa intaa markaan u daayo hadda ayaga si fiican ha loola socdo aynu intaa samayno aynu cabirkaa samayno waxaan soo samayn doonaa textigan baynu ku dari doonaa dabeetana textigaas ayaynu ayaynu ku samayn doonaa oo textigan anigu samaystay weeye adigu hadhow laakiin kaagaad ku apply garan doontaa deena marka ugu horeysa casaan baan ka dhigi doonaa midabka midabkaasaan u daynaynaa dabadeetana dushiisaan tegi doonaa waxaan leenahay kelmadda ayaynu ka dhigi doonaa fartaynu ka bedeli doonaa halkanaan furi doonaa waxaan ka dhigi doonaa maxay nooca fartaasaan ka dhigi doonaa waxaan ka dhigi doonaa khiyaaray sida fiican ula socotaan waxaan ka dhigi doonaa nooca fartaasaan dooran doonaa Gazor unique demo nooca fartaasaan kasoo dooranaya haddaanay kugu jirin internetka kala soo degaysaa taasaan ka dhiganaa size-ka waa yara kordhin doonaa size-ka waa inaga kordhinay khiyaaray saasaynu ka dhigi doonaa ta xarafkaas baynu qornay kalarka waa bedeli doonaa oo de siduu kalarku yahay baa idinka arkaya waa caddaan baynu ka dhigi doonaa caddaan baan saari doonaa kalarka halkaasaan ka bedeli doonaa caddaan baan ka dhigay caddaan markaan ka dhigno tigtaan saaranaa okay baan leenahay hadhowta waa u iman doonaa 3D-ga iyo waxyaabahaas 3D bu magacu leeyahay hadhow baynu ka dhigi doonaa laakiin ugu horreyn hadaba inta ugu horeysa saasaynu u dhiganaa dabadeetana halkan waxaan ku qori doonaa haddana inta hoose waxaan leenahay xasan style kalarka waa ka bedelanaa black baynu ka dhigi doonaa black markaan ka dhigo nooca fartaan bedeli doonaa fartan waxaan ka dhigan doonaa noocaasaan ka dhiganaya anigu farta logo typekaasaan ka dhiganayaa in yar baan size-ka yareynayaa waan yareyn doonaa ilaa toban baad ka dhiganaysaa size-ka farta okay baad leedahay waad soo qaadaysaa halkaasaad keenaysaa sidaad arkaysaan ba akhyaaray waa innagaa intaa samaynay qaybtaa waynu samaynay oo la yidhaahdo maxay outside-ki intii dibadda waynu samaynay waynu iman doonaa hadhowto in yar baynu ku raacin doonaa oo iman doonaa qaybta halkaasaan kaga iman doonaa waxaan u gelinaa iyadana qaybtan labaad baynu u geli doonaa oo sida halkanba ka arkaysaan qaybtan kale oo iyadana la yidhaahdo inside qaybtanna waa qaybtii gudaha inside-ka isaguna very important oo muhiima qaybtan baynu iyadana qaadan doonaa insha allah iyadana si fiican ha loola socdo waynu design garaynaynaa iminka ugu horeyn waxaan soo qaadan doonaa rectangle tool baan soo qaadanayaa sidii caadadayna ahayd halkaasaan ku sawirayaa rectangle toolka halkaasaan ku sawirayaa halkan markaan saa ugu sawirno waxaynu ku samayn doonaa akhyaaray
waan jiifin doonaa in yar baa saa u jiifinayaa halkaasaan dhigayaa dabadeetana double eeg halkaas ayaan dhigi doonaa waan yareynayaa in yar ilaa intaasaan ku daynayaa ilaa intaasaan ku dayn doonaa insha allah ilaa intaa ee laga doonayo inuu ku yaraado sida halkan baad ka arkaysaan sida halkan baad ka arkaysaan intaasayna laga doonayaa inuu ku ekaado qaybta sare waxaanu qaban doonaa ilaa intaasaan ku joojinaynaa okay inta markaan saa ugu daayo waxaan soo sameyn doonaa haddana rectangle tool kale waxaan soo qaadan doonaa ellipse tool ayaan sameyn doonaa shift baan isla qabanaya waa ku jeexayaa ellipse toolka markaan saa sameeyo ellipse toolkayga control iyo t baan taabanayaa waa baan sameynayaa dabadeetana qaabkan baan leeyahay saa igu yaree saa igu dhig baa qaabkan baa la igu dhigayaa saad arkaysaan ba halkaa dawadi ka arkaya qaabka yare godan oo kale ayaana laga doonaya inuu noqdo tusaalahaan kale sidaan leenahay good weliba yar baynu saa soo dhahaynaa ma intaasaynu daynaynaa dabadeetana intaa markaynu dayno okay baynu leenahay kalarka waan ka yara bedeli doonaa si aynu u arki kartaan dabadeetana akhyaaray saasaad waabka halkaasaad taabanaysaa waabbaa taabanay waabkaa halkaa marka ku dhufato dabeetana qaabkan baad u leekaysiinaysaa sidan baad usoo jidjidaysaa tusaalahaan oo kale qaabkan baad leedahay waad leekaysiinaysaa hareeraha ayaad saa uga simay say isku leekaadaan eeg hareeraha good iminka si fiican buu inoogu haystaa hadhow dabadeetana waxaynu samayn doonaa kalarkeenu ka bedeli doonaa halkan baad imanaysaa waxaad ka dhigi doontaa kalarka midabkaas sidaad aragtaanba maxay qaybtaas sarena waa inaga samaynay waxaa inoo hadhay qaybtan hoose ayaa iyaduna inoo hadhay qaybta kalaa waxani waa sections kala duwan waan isku keenay sidaa darteed qaybtan kale ayaa inoo hadhay iyadana si fiican ula socda iyadana si fiican ula soo qabta waxaad soo qaadaysaa iyadana another ellipse tool baad soo qaadanaysaa ellipse tool kale halkaa ku muujinay halkaasaad ku sawiraysaa ellipsigaaga halkaa markaad ellipsigii ku samayso niman yahow control iyo t baad taabanaysaa waa baad leedahay isagana waxayna laga doonayaa qaabkan oo kale inuu yeesho qaabkaas oo kale ayaana laga doonayaa inuu yeesho oo uu dhinaca u bato okay now qaabkan baad leedahay marka isagana sidan baad leedahay waad soo qaadaysaa okay baad leedahay halkanaad keenaysaa isagana dabeetana halkaa markaa saa u keento maxaad samaynay sidaad arkaysaanba iminka haddaynu kalarka bedello meeshii waxaad moodaa inaanu ku fadhiyin qaabkii saxdaa uguma fadhiyo sooma haddaynu soo yaro dhaweyno waa idinka arkaya haddaynu soo yaro dhaweyno suunta aan soo dhaweeyo eega kuma fadhiyo qaybtii saxdaa kuma fadhiyo sidee baynu haddaba u leekaysiin karnaa rectangle-kaa kale sidaynu u leekaysiinaynaa sidaynu u leekaysiino waxaad leedahay control iyo t dabeetana waab baad leedahay waabka markaad tiraahdo maxaad leedahay dabeetana halkanaa san usoo jiidaysa wakaa qaabkaasoo kale laga doonaya inaanu u samayno dabeetana yar baad san u jiidaysaa qura saa markuu inoo ahaado waxaad leedahay dabeetana rotation baad ku samayna dabeetana waa soo kollocinaysaa haddana good in yar baad sare u qaadaysaa waa intayna lagama doonayn inuu noqdo weliba in yar baad ku daray good haddana san baad leedahay good intaa markaad samayso
okay baad leedahay saad aragtaan ba imika maxaa aragtaan inuu size-kii saxda ahaa ku fadhiyo meesha oo inaga arkaysaanba cabirkiisii saxda ahaa wadinka arkaya sida kaas ugu fadhiya cabirka ayaynu kana cabirka ugu fadhiisanaa dabeetana kalarka un baad intaa kadibna aad ka bedelaysaa kalarkaad ka bedelaysaa oo casaan baad ka dhigana good waxaad aragtaan iminka akhyaaray waxaad aragtaan maxay inuu siman yahay oo hareeraha ka siman yahay oo sidii saxda ahaa maxay meesha ugu fadhiyo uu meesha ugu fadhiyo way intaa markaad samayso aynu qaabkaa u samayno waxayna laga doonayaa qaabkaa u samayno qaybka aynu samayno aynu qaabka saxda u samayno ee saa u gallo inta kadib waxaanu samayn doonaa qaybta kale ku xigta oo ah qaybtan iyadana ayaynu iyadana halkan keeni doonaa okay iyadoo simply wax kala samayn mayno tan u baynu soo qaadan doonaa tan u baynu aynu duplicate ku samayn doonaa copy ka qaadan doonaa alta adoo isla haya san soo qaadaysaa drag and drop baad keeni halkan aad keenaysaa qaybtaada kale dabeetana iga yaray baad leedahay size-keeda iska yaraysanaysaa halkan baad keeni now halkan markaad keento flip horizontal baad intaad right click taabato ayaad flip horizontal ku samaynaysaa flip vertical baad ku samayn doontaa dabeetana maxaa lagugu samaynayaa dhinaca kale ayaa lagugu rogayaa dabeetana kanaad ku durkinaysaa in yar kanaad ku durkinaysaa hoos baad soo yara jiiday good intaasaad u daysanaysaa intaasaad u daynay dabeetana maxaad leedahay okay saad arkaysaan ba khiyaaray intaana waynaga samaynay oo halkaa waynaga ku apply garaynay now dabadeetana qaabka markaad u samayso haddaad doonto in yar baad rotation ku samayn doontaa saasoo kale u daynaysaa qaabka markaad samayso aynu sidaa akhyaaray u gallo aynu qaabkaa u hagaajino waxayna laga doonayaa oo kale iyadana oo muhiima waxaa muhiima oo aynu u baahannahay inaynu samayno okay dabeetana akhyaaray saasaan samaynan doonaa halkaasaad saa dabeetanaad ku fadhiisanaysaa qaabkaasaad u samaynay waxaynu ku xijinaynaa qaybta kale oo ah sidaad arkaysaanba qaybtaa sare ee ah waxaanu samayn doonaa qaybtaa sare ayaynu apply garayn doonaa sidaa darteed marka ugu horeysa waxaad la soo degi doontaa social media iconskan ayaad la soo degaysa social media iconkan ayaad la soo degi doontaa waxaanad kala soo degi doontaa website-ka yaraa la odhanayay flat icon horeydi kusoo sheegay descriptionkiisa waan idin soo sheegi doonaa videogaas soo daawo video hore jirta waa ka diyaariyey oo muhiim ahaa oo aan diyaariyey oo ka hadlayay saddexda website ee ugu muhiimsan markaad graphic designer tahay for example markaad tahay qof xiiseynaya ama jecel designerka iyo waxa designka waxaa jirta saddex website oo aan ka maarmi karin video waa jirtaan ka diyaariyey videoga soo daawo descriptionkiisa waan la wadaagi doonaa sidaa darteed website-kaas aad booqan doontaan waa kala soo degi doontaan anigu waan la soo degay iminka waan boobsiinayaa waan keenkeenayaa laakiin adigu haddaan kuugu jirin waad la soo degi doontaa dhammaan iconskan okay kii ugu horeeyay wanigaa soo degay oo user icon baa la yidhahdaa wanigaa la soo degay waxaan ku samayn doonaa inaan kalarka iska bedelo kalarkan bedeli doonaa halkan baan ku dhufanayaa waxaan leeyahay color overlay casaan baan ka dhigi doonaa wanigaa ka dhigay casaanka midabkaasaan u daynaya automatic horaan ugu sameeyaan oo casaankaas ka dhiganaa adna hadho casaankaas ka dhiganay intaa markaad samayso text baan ku qori doonaa halkaasaan t baan leeyahay t marka aan leeyahay halkaasaan ku dhufanayaa entry boardka dabadeetana dushiisaasaan saa ugu sawirayaa haddaba eeg dabeetana maxaan leeyahay magacaagii ayaad ku qoranaysaa halkayga ku qoranaya tusaale
dabeetana nooca farta sizekeeda waad yareena sizekeeda waad iska yareynaysaa sizekeeda waad yareynaysaa ilaa intaasoo kale u daynaysaa waad soo qaadaysaa halkan aad keenay good halkaasaad saa u keeni haddaad doontona waad yareynaysaa lama doonaya waxaan intaa ka bato good intaasaad u daynaysaa in yar baad saan leedahay in yar baad dhinaca u durkinay intaa markaad samayso akhyaaray intaa samayno aynu qaabkaa u dayno waxaana laga doonayaa sida qaabkanba dee inoogu yahay aad arkaysaanba qaabkaasoo kale sidaad arkaysaan waynu samayn doonaa weliba in yarna haddan doona waa yareynaynaa good intaasaynu daynaynaa okay intaa markaad saa ugu samayso waxaad soo qaadi doontaa qayb kaleynu haddana text hooseynu ka dhigi doonaa aynu soo qaadan doonaa kanaynu duplicate ku samayn doonaa altaad isla qabanaysaa hoos baad keenay adoo alta isla haya ayaad halkan hoose keenaysa ayaad qaybtaa hoose keenaysaa kaana in yar baad hoos usoo yara durkina waa inay sinaadaan mar walbana iska ilaali mar walba waa inay fartaadu simanta okay tanaynu haddaba ka bedeli doonaa waynu hagaajin doonaaye waxaan leenahay graphic designer waynu ka dhigi doonaa nooca fartaynu bedeli doonaa waxaanu ka dhigi doonaa noto sense baad ka dhiganaysaa oo noto sense waa regular small letter baad ka dhigi doontaa waad yareynay okay baad leedahay control iyo v baad leedahay saa halkaasaad dhigaysa halkaa markaad saa u dhigto waxaynu samayn doonaa tan in yar baan yareynaynaa intaasaan u daynayaa waan soo qaadi doonaa halkan baan leeyahay tanaan la simaya hoose tanaan la simi aan saa ula simayaa okay tanna in yar baan soo durkinayaa inahaasoo kale aan u daynayaa saaad arkaysaanba waa idinka arkaya qaabkaasoo kale ayaa aynu ugu ablay garaynaynaa qaabkaasoo kale aynu ugu ablay garaynaynaa sidaad halkaaba ka arkaysaan sidaad halkaaba ka arkaysaan intaa marka aan sameeyo waxaa layga doonayaa haddana maxay niman yahow okay akhyaaray saasaa dabeetana ad u samaysaa qaabkaasoo kale ayaynu ka dhigi doonaa insha allahu saasoo kale ayaa la doonaya maxay inay u sinaato qoraalkaaga iyo iconskaaguba kuwa kalena waan kusoo dardaraya waan boobsiinaya intaas adiguna waad la soo degi doontaa si fiican aan ula socdo okay akhyaaray dabeetana waxaad samaynaysaa iconada saasaad ula soo degi doontaan dabeetana okay baynu leenahay intaa kadib waynu boobsiinaynaa oo mid walbaba qoraaladii baynu ku qorqori doonaa tusaale ahaan oo kale waxaynu taaban doonaa halkaasaad taabanaysaa text baynu leenahay textii baan ku dul qori doonaa dabeetana numberkeeni baan ku qori doonaa dabeetana waan yareynaynaa farta sizekeeda waa yareyn doonaa nooca fartana sense baad ka dhigan doontaa hadhow intaasaan u daynaynaa waan soo qaadi doonaa halkaas saraan keeni doonaa dusheeda inahaas aynu dayn doonaa insha allah waliba yar baa saa u dubinaynaa dabeetana isla tan u baynu maxay
alta ka qaadanaynaa hoosteeda saa u dhiganaa haddaba leeg hoosteeda ayaan saa u dhigi doonaa waan la simi doonaa farta labada farood waa inay sinaadaan mar walba iska ilaali akhyaare halkaa waa idinku baraarujinayaa mar walba fartiinu waa inay simanta dabadeetana halkaas waxaan leeyahay halkaas nambarkayga kalaan ku qoranayaa waa intaas waxaan kaloo ka tegi intaa markaan sameeyo waxaan kaloo halka ku dari doonaa intaana waan raacin doonaa saad arkaysaan badda weyniga waxaynu wadnaa waa qaybta labaad qaybta textigan wadnaa gabagabaynu ku dhowdhownahay intaa marka aan sameeyo inta kalena waan boobsiinayaa maadaama videogu aanu nagu sidaan videogu inoogu dheeraanin inta kale waan boobsiinayaa sidaa darteed si fiican ha loola socdo kaana akhyaray saasaan u qorayaa isagana waa whatsapp numberki baad isku qoranaysa hadhow adiguna dabadeetana waxaan leenahay okay akhyaaray waa inagaa dhamaynay sidaa fiican waa inagaa u design garaynay iconskii phone numberkeenii dhammaan phone numberadeenii baan qoray halkana waa whatsapp numberkii account numberkaygii baan qoray halkana waa gmailkaygii ama waa emailkaygii adiguna hadhow saasaad u buuxsanaysaa halkaa oo qaabkaas ugu qoray intaa kadib iconska social media iconka kalaraantooda bedeli doonaa casaan baynu ka dhigi doonaa insha allah waa bedeli doonaa si laga bedelo halkan aniga hore kusoo sheegay halkan baa laga bedelaa color overlay baan ka dhigi doonaa waan boobsiinaya iyagana si fiican okay akhyaari saad aragtaanba waa inagaa qaabka u design garaynay waa inagaa hagaajinay dhammaantiis waa inagaa design garaynay sida fiican u design garaynay iconskii caddaan ka dhignay qoraaladii qornay fartii sinay hareeraha ka wada sinay ogow mar walba fartaada waa inay hareeraha ka sinata iska ilaaliya si wax qurux badan oo resultigu inoogu noqdo intaa markaan sameeyo waxay noogu xigi doonaa qaybta kale aynu eegi doonaa qaybta kuwii scannerka kaasaynu isagana inoo hadhay kan baynu isagana soo qaadi doonaa iyo gradient background aynu ku dari doono intaasunbaa inoo hadhay sidaa darteed si fiican loola socdo isagana waan boobsiin doonaa siaan videogu nolol dhabaad waad la soo degi doontaan kuwanar scannerka waad la soo degi doontaan google internetkaad kala soo degi doontaan si fiican loola socdo akhyaray waa inaga la soo degnay kuwii scannerka halkan baan dhiganaa dabadeetana waa soo qaadaysaa halkaasaad dhigaysaa weliba special halkaasaad dhigi doontaa halkaasaad dhigaysaa waa inuu dhinaca la sameeyey good intaasaad u dayn doontaa sizekiisa intaasaad u daynay qaabkaas ayaad u daynaynaa dabadeetana waxaan dusha ka saari doonaa sida qaabkan baad arkaysaanba saynu u design garaynay waa idinka arkaya rigitaanka tool baa dusha ka saaran qaabkaasaynu ugu qaab garaynaynaa dabeetana si fiican loola socdo waxaad soo qaadi doontaa wax la yidhaahdo soo qaadan doonaa wax la yidhaahdo rectangle tool baynu dusha saa uga sawiraynaa dushaynu saa uga qabanaynaa rectangle toolka dushaynu saa uga qabanaynaa haddaba leeg intaasaan u daynayaa intaasaan insha allah u daynayaa dabeetana waxaan leeyahay uma baahani wax la yidhaahdo background color uma baahani stroke baan raacin doonaa stroga madow baad ka dhiganaysaa strogaaga in yar baad yaraynaynaa intaasaan u daynaynaa insha allah dabadeetana si aan u jarjarno waxaan soo qaadan doonaa wax la yidhaahdo mastarad baynu soo qaadan doonaa ama ruler waxaynu ka dhigi doonaa maxay inta aynu rabno inaynu jarno baynu dhigi doonaa haddaba leeg intaan doonayo inaan jaro baan dhigi doonaa intaynu rabno inaynu jarno ayaan dhigi doonaa waan soo qaadi doonaa halkan baan keeni doonaa halkaasaan dhigi doonaa mid halkaasaan dhigi doonaa mid kalena halkaasaan dhigi doonaa good mid kale waan soo qaadi doonaayo iyadana waxaan dhigayaa halkaasaan dhigi doonaa mid kalena waan soo qaadi doonaa halkaasaan dhigi doonaa halkaa good intaa markaan samayno waan jarjaraynaa haddaba si fiican loola socdo si aad u jarto maxaad samaynay marka ugu horeysa rectangle toolka waa dooranaysaa
dabeetana waxaad ka dhigi doontaa dushiisa intaad tagto right click intaad taabato waxaad ka dhigaysaa restrace layer. restrace layer markaad ka dhigto waxaad soo dooranaysaa halka ay ku qoran tahay rectangular mercue qaybtaasaa dooranaysaa waliba qaybtaasaa dooranaysaa dabeetana inta aynu calaamadinay soo ma garanaysaa akhyaaray inta aynu calaamadinay oo qura ayaynu jaraynaa dabeetana waa dul tegaysaa akhyaaray saasay kugu dul dooranta saasaad u dul saaraysaa qaabka markaad saa ugu dul saarto ee aad saa ugu calaamadda blasta ayaad saa ugu saaraysaa intaad habeynay dabeetana delete waad jaraysaa cut baad ku samaynaysaa okay waad aragtaan saad arkaysaanba maxaad aragtaan hadda iminka haddaan soo dhaweyno waxaad aragtaan maxay in ay gooday okay qaybta kalena iyadana u gelaynaa oo qaybtana iyadana saasoo kale nu jari doonaa intaynu calaamadinay haddaba leeg iyadana cut baynu ku jari damayn doonaa haddana intan kale aynu calaamadinay ayaad iyadana jari doontaa cut haddana intan kale aynu calaamadinay ayaynu iyadana jari doonaa cut wixiiba waynaga cut garaynay oo jarnay dabeetana inahaas ayaa aad ku daynaysaa dabeetana sidaad aragtaan baa khiyaaray waynaga hagaajinay dabeetana intaa kadib waxaanu iska qaadi doonaa rulerskan baynu iska qaadi doonaa mid kasta meesheedii ku celin doonaa tanna waa qaadaysaa saad aragtaanba maxaad aragtaan haddaan soo dhaweeyo waxaad aragtaan qaabkii saxda ahaa ee u hablay garayna inuu u fadhiyo waa idinka arkaya qaabkaasoo saxda exactly good intaa markaan sameeyo waxa aan intaa markay nagaga dhan tahay qaybtaasi waxaa inoo hadhay hotaa guud ahaan business cardku qaabkaasaa loo design gareeyaa hal qodob baa inoo hadhay oo aan doonayo inaan ku daro haddaan iminka aan wada tuso waxaanu design gareynaynay maanta oo dhan wakaa waxaanu design gareynaynay wakaa saad arkaysaan baa khiyaaray waa innagaa sida fiican u design garaynay hal qayb baa inoo hadhay oo ah inaynu ku darno wax la yidhaahdo background gradient baad ku daraynaa qurxiya si fiican usii qurxiya oo si yara hagaajiya background gradient internetka google-kaad kala soo degi doontaa adiguna mid qurux badan oo u qalma sidaa darteed anigu hore la soo degay waan gelinayaa si fiican loola socdo okay akhyaaray waa ka background gradientigeenii la soo degnay dusha anagaa soo gelinay tigtaad saaraysaa halkaa tigta markaa saa u saartay saa inoogu sameydo dhinaca hareeraha waad ka samaysaa hareerahaad la ekaysiinaysaa adoo shift isla haya hareerahaad la ekaysiin doontaa tanna la ekaysii dabadeetana okay baan leenahay haddee shaygii wixii uu inaga qariyey xagga hore xagga dambe aynu marinaynaa si aynu xagga dambe u marina waxaad leenahay control shift maarta xagga dambe inuu maray xaggii dambe ayaynu marina okay dabadeetana opposite-giisa ayaynu yarayn doonaa opposite-giisa waxaan ka dhigi doonaa 24 halkan opposite-giisa laga yarayaa shayga marka ugu horeysa markuu saa kugu dooran yahay waad soo qaadi doontaa shaygaad soo dooranaysaa marka ugu horeysa gradientigii oo halkaas oo kale waxaan ka dhigi doonaa gradient baan u doonaynaa gradient bg oo aynu soo gaabinay maxay gradient background dabadeetana gradient background-ka opposite-giisa yarayn doonaa halkaasaa laga yaraya opposite-giisa waa 100% imika waynu yarayn doonaa يعني opposite-giisa 100% waxa looga jeedaa wuu buuxaa hoos baad u dhigaysaa marka degrees 24 meel ka dhigi doonaa ugu dambeyn 24 cabirka ah baynu ku yarayn doonaa good 24 already waynaga ka dhignay 24 ayaynu ka dhignay haddaynu soo dhaweyno iminka bal soo nagu muuqdo wayna wadi ka arkaya 24 baa ayuu inooyay 24 binooye okay qaybta kale iyadana ku dhigi doonaa gradient ku dari doonaa iyadana si fiican ah loola socdo waynu ku soo dari doonaa okay isagana waynaga qaybta kale waynaga ku soo darnay halka magacyada oo ka bedeli doonaa oo for example oo kale qaybta sare wayn ka bedeli doonaa ugu horeyn waxaan sameyn doonaa halkan oo kale waxaan ka dhigi doonaa outside baynu ka dhigi doonaa okay tanna waxaan ka dhigi doonaa maxay
inside iyo outside maxay kala yihiin midna waa gudihii midna waa dibadii dabadeetana tani waxay noqonaysaa haddaan soo dhaweyno qaybtan hore waxay noqonaysaa outside-kii oo waa qaybtii dibadda waa coverkii tanna waa gudihii oo detailskii loo apply garaynayo haddaba hal qayb bay noo dhiman oo ah inaynu xarafka h ee loogada xarafka h waxaynu uga jeednaa waa loogadii oo kale nuga sheegnaa loogadii baynu uga jeednaa adiguna hadhow loogadaada kala soo gashanaysaa meesha loogadaasanu yaro qurxinaynaa 3D baynu ku dari doonaa 3D as a 3D maadaama halkan badi aad arkaysaan 3D buu inoo yahay sooma wadi ka arkaya 3D waynu 3D garaynaynaa select garaynaynaa halkan soo dooraynaa halka markaas uu soo dooro si fiican loola socdo waa ku dardari doonaa 3D baan ka dhigi doonaa okay 3D gi baan ku dari doonaa cabirkaas ayaad raacin doontaa saas oo kale hadhow inoogu soo bixi doonaa dabadeetana inahaas ayaa aynu u daynaynaa insha Allah inahaas aynu dayn doonaa 3D baan ka dhigi doonaa dabadeetana qaabkaas ayaa aad u apply garaynaysaa akhyaarta sharafta leh casharkeena maanta intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa intaas aynu ku gabagabeynaynaa run ahaantii si fiican baynu design garaynay si qurux badan baa ayaa aynu u design garaynay sidaad arkaysaanba si fiican buu inoogu design garaysan yahay sidii marka horeba u design garaysnaa qaabkan oo kale ayaynu u design garaynay sidaad aragtaanba waa idinka arkaya sidaa darteed haddaynu soo dhaweyno iminka 3D geenii waa idinka arkaya sidaa darteed inahaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa casharkeena maanta waynu kaga hadlaynay sida loo design gareeyo business cardka oo business cardada sida loo design gareeyo adoo isticmaalaya Photoshopka inahaas ayaan doonay maanta inaan idin la wadaago waad mahadsantihiin casharkeenu halkaas ayuu noogu soo gabagaboomay maanta waynu ku dhamaystiraynaa videoguna intaas ayuu noogu eegyahay waa inoo kulanti dambe oo xiiso leh